السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. intaas kadib waa barashada tiiriga qeybtiisii koowaad oo ah farkeer borden ya tabeelayaasha. marka waxaa la dhahaa leeqen farkeer borden, baro boorarka ama tabeelayaasha baabuur wadista. casharkan waxaan ugu talagalnay dabcan inay dadka walaalaheena soomaaliyeed ee luuqadda ku adag inay ka faa'iidaystaan. theory less for rivers b, macnaha waa casharka theoryga oo ah rivers leysinka baabuurta lagu wado oo ba ah. waxaa ila soo gudbinaya anoo cabdiliif aadan ah. intaan casharka u gudagelin, casharka waxaan u qaybinaynaa qeyb oo siduu ku socdo buwaagta category ah. qeybahaas ayaad u raaci doontaa insha allah. waxaan isku dayi doonaa asbuuciiba hal cashar inaan soo gelinaa janalkeenaas si ay walaalaha kale uga faa'iidaystaan. casharada annaga online aan ku bixina, marka sidaa daraaddeed qofkii danaynaya si qaasu noola soo xiriiri karaa oo website-keenaas ayuu kala soo xiriiri karaa info@somalicomputer.com. emailkeeduna waa sidaas info@somalicomputer.com. fariintaada halkaas ku soo dir iyo ujeedada aada u socoto insha allah. casharkeeni markaan u guda galno waxaan ka bilaabeynaa leeqen farkeerboard. farkeerboardiga waxaa lahaa astaamaha ama sayninka lagu garto calaamada. waxaan ka bilaabeynaa waxa lagu magacaabo ah b n oo ah forrangsvek. forrangsvek waxaa lalahaa for iyo rang vek, waa laba erey oo lasu geeyo wa qofka jidka iska leh. forrangsvek haddaan si kale u qeexo wuxuu qaybsamaa 3 qaybood oo casharada dambe ayaad ku arki doontaa. casharka labaad, forrangsvek waxaa la dhahaa forrang farleynin, dadka inaa jidka adiga amaahisa, iyo forrang kregen, in jidka adiga lagu siiyo. sidaa daraaddeed marka jidka markaad marayso baabuurkooda ama adigaa jidka leh ama waa lagaa leeyahay. sidaa daraaddeed marka haddii jidka aada lagaa leeyahay waa forrang farleynin, haddaa adiga leedahayna waa forrang kregen. waxaa ii soo haray marka waxaa jira mid ka baxsan oo lagu magacaabo forrang uitzondering wax la dhahay. forrang uitzonderingka casharka dambe oo labaadaad ku arki doontaan insha allah. forrang uitzondering macnaheeda waxaa waaye dad gar iyo gardarro jidka iskale, sida boliiska, waxaa ka mid ah sida ambalaaska, sida brandeverka, dabdamiska, kuwaasoo dhan ayaa jidka kaa lahaana. marka forrangsvek markii la dhaho jidka adiga iska leh. forrangsvek markii la tilmaamayo wuxuu ku yaalaa wax lagu magacaabo boyton bibawde comt. boyton bibawde comt macnaha waxaa magaalada banaankeeda, iyo binan bibawde comt magaalada gudaheeda. labadaba boorkan wuu ku yaali karaa oo labada meelood buu ku yaali karaa, magaalada gudaheed iyo magaalada banaankeed. marka boorkan markaa aragto bena lagu magacaabaa forrangsvek alada. forrangsvek markii jidka adaa iska leh waay. boorkaas jaallo hadduu yaalo gar i gardar adaa iska leh. betway end forrangsvek macnaha waxaa waaye wuu dhammaaday jidkii aada wadada lahayd. marka boorkan lasoo qoro oo 3 calaamadood ee madmadow ay ku qoran yihiin, 3 diilmadood ama 3 garaado waxaad u taqaanaba, jidkii wuu dhammaaday waa. hadduu jidka dhammaaday macnaheeda wadfar waktigay maxaad sugaysaa? waxaad sugaysaa dabcan in jidkii u noqdo isgoys oo ah markii lagu dhaho jidka waa dhammaaday, baabuur kasta ee midagka ka imaaday magaalada gudaheeda uu kaa yeelanayo. waxaa kaloo kaa yeelanaya baaskiilka kaa yeelanaya, waxaa kaa yeelanaya mootada kaa yeelanayso. marka qorshaha ku darso, alertigaada ha shaqeeyo markaad boorkan aragto
in aad sugayso in waddadii wixii hadda ka dambeyso lagaa leeyahay. kan jaalaha vorrang krijgen u ahay kana waxa waaye vorrang verlenen. wixii hadda ka dambeeya dadka kale ayaa jidka kaa lahana inaad ku barat. wuxuuna ku yaalaa inta badan binnen de bebouwd, magaalada gudaheeda. magaalada gudaheeda markaad soo gasho ayuu u badan yahay oo banaanka ka timaado. binnen magaalada lah. magaalada gudaha markaad soo gasho boorkaas ku yaalaa, marka inaa aada uga fikirta ayay mudan tahay. beediqi macnaheeda waxa waaye vorrang kruispunt. vorrang kruispunt waxaa loo jeedaa jid aad leedahay laakiin isgoys waay. isgoyska wuxuu tilmaamayaa jidkan calaamada madow, dhinaca bidixda jid baa ka imaanaya, midigtana jid baa ka imaanaya oo ah gelijkwaardig kruispunt camal. sidaa daraaddeed marka maxaa dhacaysa? waxaa dhacaysa jidka toos adaale, laakiin waxaa dhacaysa haddii aad adiga waxa dhacaya waxaa waaya haddii adiga aad jidka aad tooska u socotay aad tiraahdo dhinaca midigtaana u leexanaya oo rabto inaad midig u leexata, oo uu qof bini aadan uu halkan lugeynayo, haddaan si fiican u qeexo, uu qof halkan lugeynayo ama uu baaskiil ku socdoba, adiga baabuurkaadi midigta usoo leexday waa inuu istaago oo jidka aad siiso qofkii tooska u socday. waxaa la dhahaa haddii jidkaad isku dhinaca ka imaata op dezelfde weg, adiga jidka waa lagaa lahaanayaa, waxa jidka iska leh qofkii aad isku dhinaca ka imaateen, ama qofka ha lugeeyo ama gaadiid ha saarnaado ama baaskiil ha saarnaado. sida asalka qofka gaadiidka saaran waxaa lagu magacaabaa bestuurder, qofka lugeynayana waxaa la voetganger. dadka jidka wadaagayana kulli waxaa lagu magacaabaa verkeer ama weggebrokeris. verkeerka iyo weggebrokerska waxaa waaye dadka wadada o dhan isticmaalan. qofka lugeeyaa ka mid ah, gabadha baabuurka riixaysa ka mid ah, bushiyeerka ama kinirvaakanka, waxaa ka mid ah dadka curyaamiinta oo lugeynayaan, waxaa ka mid a qofka baaskiilka saaran, qofka mootada saaran, qofka baabuurka saaran, kulligood waxaa lagu magacaabaa verkeer. laakiin waxay u kala baxayan verkeerka laba qaybood. bestuurder wax gaadiid saaran, mooto saaran, baaskiil saaran, waxyaalahaas lagu orday saaran, staab saaran, iyo waxay noqonayaan qof lugeynayo. marka sidaa daraaddeed kruispunt haddaad midig u leexanayso, qofka aad tooska u baxaya wadada kaale qorshaha ku dar, xasuusnow arintaas. jidkan haddaa aragto macnaheeda waxaa waaye vorrangs kruispunt, waa isgoys waaye, bidixii midig ayaad u leexan kartaa oo way bannaan tahay. het volgende kruispunt waxaa lagu dhahay waxaa suuragal ah gelijkwaardig kruispunt, waxaa imaan kara waddo isgoys ah, marka dhinaca bidix iyo dhinaca midig waa u leexan kartaa. b4 vorrangs kruispunt oo ah vorrang kruispunt waxaa loo yaqaanaa oo ah zijweg links, dhinaca midig keliya ayaad u leexan kartaa iyo tooska, midig way kaa xiran tahay. marka b4 waay. b5 waa vorrang kruispunt oo zijweg rechts, isagana dhinacan wuxuu tilmaamayaa dhinaca midigta inaad u leexan karto oo waxaa lagu yihi zijweg rechts. kii hore uu la mid yahay, laakiin waa midna bidixa loo leexday midna midig. bases verlening ina jidka amahayso vorranga aan bestuurderis, dadka jidka gaadiidka saaran op de kruisenweg, jidka isgoyska. magaca kale ee loo yaqaano waxaa la dhahaa haytand ama sambuus dhulka ku yaalo. dhulka hadduu sambuus kugu yaalo, qof kasta oo hortaada marayo jidka uu kaa leeyahay, ee halkaas kulugu maaragtay gaadiid saaran qasab ayuu kaaga leeyahay. waxaa lagu dhahay marka verleen amaahi vorranga aan bestuurderis op de kruispunt, dadka halkaas. haddii meeshu sabrabaad ku yaalo, qofka lugeyna uu kaa leeyahay oo waxawaaye inaad jidka siisay noqonaysaa. marka haddii marka uusan waxba ku yaalin oo baaskiilka iyo mootooyinka iyo baabuurta kale ayaa kaa leh, markaas waxaa waaye jidkaas waxaa lagu magacaabaa verlening vorrangs aan bestuurder op de kruisenweg. waxaa waaye verleen amaahi vorranga dadka jidkaas marayaan, bestuurderka ah ee jidka inaad amaahisaa lagaa rabaa. haytandahana badanaa waxaa waaye meel kasta ku yaala isjir waaye,
inaad qorshaha ku darsato ayaa loo baahay. b7 waxa waaye stop. meeshan stop ay ku qoran tahay macnaheedu waxa waaye Verleen Voorrang aan bestuurders inaad amaahiso dadka jidka op de Kruisenweg. halkaas meesha stop ku yaalo baabuurka markaad wadaysa hadda maarshada koowaad inaad ku soo celiso ama iskaakel ein ayaa farbiliqti ah. haddaad exam practice galayso, haddaad theory galayso, labadaba inaad istaagtaa lagaa rabaa. waa meel markaad istaagto bidix fiirinayso midad fiirinayso waxaa lagu magacaabaa unsichtbaar waay. si fiican waxba uma arkaysid, waxaad u baahan tahay inaad istaagta oo wadada bidix iyo midig aad fiirisa kadib aad socotaa. boorkaas muhiimadeedu leeyahay. waxaa muhiima marka cashirkan soo qeexayno ah oo lagu magacaabay op on verharde weg omdat bestuurder op onharde weg alle tijd voorrang moet verlenen. waxaa lagu dhahay haddii aad ku socoto jidka jajaban on verharde wegen waxaa la dhahaa jidka jajaban oo laamiga ahayn haddaad ku socoto waxaa lagu dhahay sababtaas darteed bestuurder op de onharde weg alle tijd mar kastaba waxaa laga rabaa moeten verlenen inuu jidka siiyo ama amaahiyo aan bestuurders op verharde weg dadka jidka laamiga ku socda inuu siiyo. tusaale qof ayaa baabuura wadataa, waxaad ka imaatay jid jaay ayaad ku socotaa, waxaad ku soo darsantay jid laami ah. laamigii ayaad ku soo darsantay. laamiga markaa ku soo darsantay qofka adiga jidka jaayiga ku socotay, qof ayaa lugeynaya laamiga ku socday. waxaa lagu leeyahay qofkaas lugeynaya jidka makaa leeyahay. jawaabta kooban adi haddaad jid jaay ka imaatay isagana qofka uu lugeynayo jidka magaal leeyahay, jawaabta kooban waa maya. sababtoo qofka lugeynayo waxaa leedahay the voetganger is niet bestuurder. qofka lugeynayo maahin bestuurder oo ah qof darawal ah oo gaadiid saaran. sidaa daraaddeed jidka jajaban haddaad ku socotood baabuur wadato, ood mooto wadato, ood baaskiil aada wadato, adiga markasta kale qofka lugeynayo ogow. waxaa laga yaabaa in lagu tuso adigoo baabuur wata oo jid jajaban ka soo baxay qof faras saaran. haddii qofka faraska saaran yahay isagaa jidka kaale, sababtoo faraska qofka saaran waxaa lagu magacaabaa bestuurder. sidaa daraaddeed waxaa leedahay qofka faraska saaran oo jidka laamiga ku socdaa ka leh qofka jidka jajaban ku socda ee baabuurka wata. sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa mararka qaar qofka in laga dejiyo faraskii ama gaadiidku saarnaa uu hoggaanka haayo. hadduu hoggaanka haayo markaasna qofka markuu xayawaankaas jiidayo bestuurderis waay. jidka waxaa lagaa rabaa inaad jidka siiso. markaad jidka on verharde weg aad ku socoto jid jajaban iyo on verharde weg jid jaay ama karakeshin ama jajabay markaad ku socoto ama ciid ah ood usoo bambaxdo jid verharde weg oo laami ah, jidka laamiga ayaa markasta jidka iska leh inaad la socotaa loo baahan yahay. allahuma oidsondarenki inaad iska ilaaliso. hadduu qofka meeshaas ka soo baxo yahay qof indhoolo ah, markastaba dadka indhoolaha dadka curyaamiinta iyaga muhiimad gaara ayay leeyihiin in iyaga voorrang oidsondering voorrang in la siiyo. qofka indhaha la-na waxaa lagu gartaa ulbu wataa. ushaas waxay leedahay calaamado guduudan oo 3 ah. markuu taagaba inaad istaagto waa sharciga. qorshaha ku darso. Kruisenweg fiets bromfiets iyo ka soo baxaan. casharkan marka waxa waaye casharkeenii aan ugu talagalnay end verkeerborden. la soco casharka dambe. tot volgende les. anigoo cabdilif aadan waxaa idinkaga tegey amaana.